هنا هي فارس وحيارك المالك إنه يهاي بلاد فقر جوح الله إلى هذارين ويها خير أنت أصوات كأنتي تبكي هيكون نسبة شجرة يبرج هذا الدين تكريسنا إلى الهراء ورنا جتوع مركز دولار إلى ورشة السبايسة أو هرمنا الدنيا السبايا كان يستدي لا يسهر تكتوع إلى هذين وصخ الدنيا يوم الحديث كشوفتها وقوة كان يستدي كنقاتين يدي وحلا إلى هذا يدي تكون هدي نجح اللي بيسهر مركز الدنيا كان يستدها كحناط waxa kala macruufa oo taa cagsigeeda ama ka soo horjeeda madhabaha shuuciyada iyo raasmaaliyada nimanka mulxidiinta ah ee bilaadiinta ah shuuciyinta iyo qolyaha adduunyadu ay qaadatay ee jeebka ay ku ridatay reer galbeedku ay hormuudka ka yihiin iyaguna waxay u arkayaan maalka inuu yahay ilaahul afraad wal jamaacaat shakhsiyaadka iyo ummadaha in ilaahoodu maalka yahay nimanka yuhuuddu marka ay takhdiidka sameeyeen boqol iyo siyaado sano ka hor waxyaabaha ay ku heshiiyeen bay kamid ahayd si aynu dadka u qabsan karno si laynoogu sujuudo laynoo caabudo si afkaarteenu ay u socoto waa inaan dhaqaalaha gacanta ku dhignaa iyo meel kastoo dhaqaale uu ka soo baxayo sida dahabka sida baananka sida warbaahinta iyo meel kastoo wax lagu cunayaba hudheel yaroo kastoo lagu urursan yahay adduunyada intiisa badan mar hadii lagu sheegay inuu caalami yahay hudheelkaas yuhuud baa daba ku leh qoladaas halkaasay mariyeen waxay yiraahdeen qofka maalka leh isaga meeshan ka ilaahay laga dambeynaya meelaha qaar kood baad arkaysaa qofka taajirka in loo sujuudayo markuu meesha soo baxo ama uu ka soo moodo sidaa darteed dariiqada islaamku maray waxa weeye taa dhaxdhaxaadka waa nicmo ilaahay u bixiyo oo ay tahay sida wanaagsan in loo isticmaalo iyadoo ilaahay loogu mahadnaqayo bal waxaynu odhanaynaa qur-aanku magaca u bixiyay maalka waxa weeye erayga khayr buu ku isticmaalo ilaahay baa waxa uu wa innahu li hubbi al-khayr la shadiid maalka weeye erayga khayr waxa looga jeedaa waa maalka insaanku maalka uu jecel yahay maalkaas khayrkaas maalkii looga jeedo إلهي بابا آيات كما يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قفوا والدين تيددك حكتلا هاودر دارمو هاتو خير كتغو خير كاتوحة ويا مارك مثل بعض النظام قاعدة وبقرا قواعد الإسلام كمالك كمدة وحوية المال مال الله والإنسان مستخلف فيه مالك ومالك إلهي أضومه لو أضومه إلهي يقول لو أمانه رجع فوق المالك فعنت كهينه وحينو آمنين إنه مالك نبتاه له إلهي إنه لا ينكد أنها الشقاله يستقى وكيل كتبعها سيدا ويري مامورا يما شورك الشقيسة يما شورك بحية لا إله يستقى وكامل قارنه تاوحت المامة النصوص فربرا إلهي ما وحى أوليه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سبا إن فرعي إلى المالك كبير لنا آخركم رأسنا جنة إلهي يا إلهي وحى أوليه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وحكب حية وحى إلهي وكيلا غير كبير يلكم مالي منين أمانها ياته وصلا يستوركي بركوكال أمانك مالك بخارك qofka walaalinaya taasirka kale uu ka dhigay yahay qofkii maalka gacanta ku hayay ilaahay wuxuu leeyahay wakiil baa iga tiinay idinku dhabnimo uma lihidin amarka qaato wax ka bixiya markale ilaahay wuxuu wa aatuhum min maali llahi alladhi aataakum adooma la xoreynayda aayadu ka warramaysay walkaas ilaahay wuxuu xoolaha ilaahay wax ka siiya xoolaha ilaahay ee idinka uu idin siiyay wax ka siiya waa kaga bakhaylina waxay lahayd aayad kale ku suuratul waaqica ku sugan isagoo tilmaamaya xoolaha inuu isagu iska leeyahay iyo maalkaynu gacanta ku hayno iyo arsaaqada ummadaha in farabara lagu adoonsado ilaahay wuxuu leeyahay afara'aytum ma tahrufun aantum tazra'unahu am nahnu zari'un ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون وحكوا رنتان بل وحا ابيرنيسا يا صوصاره بينك صار مثل إلهي سبحانه وتعالى إنسان كنت وبرتي قرار أيو كشبا فريدي شنيد النقري
dabeetana uu eegaan waa ka sheekhu qodobada sicir bararka keenay waxyaabaha ka mid ah dabeecadii baa isbedeshay iyo roobkii waxay yidhahdeen iminka markay sii taxliilinayeen roobkii baa wuxuu u batay bay yidhaahdeen kuwa aan waxba soo saaraynin oo xagga afrikada iyo caalamul islaamiya nimankii wax soo saaraya reer yurub iyo reer maraykanna wuu ku yaraaday oo waxaaba la tilmaamayaa sanadkan in barafkuba uu iska yaraa marka haddii sidii hore ay ahaan lahayd ama annaga nagu badan lahaa madarku waanu ka midha dhalin lahayd bay yidhahdeen macnaha si cawajaa dadka loogu dhigayaa taasina waxay tilmaamaysaa runtii inaanay waxba gacanta ku haynin ila badda ay afuufi lahaayeenoo daruuray samaysan lahayn hadday taal hayaan ilaahay in laga sugayo subxaanahu watacaala arsaaqada iyo maalkaba waxa walaalayaal in qodobka saddexaad uu noqonaya maalka marka ilaahay ummadda u dhiibay waxa uu nasku tilmaamaya ama ayna aaminsanahay haddaynu dadka muslimiinta aan nahay fitna inuu yahay macnaha wax qofka lagu imtixaanayo qofkii baa lagu imtixaanaya ummadda gacanta loo geliyay maalka ayaa la eegayaa ma dadkay ku adoonsanayaan oo sidaa yuhuudda aynu kaga warramayno ayay niman waaweyn oo dadka ka duwan iska dhigayaan ay ku kibrayaan oo caalamka ay ku fasahadinayaan oo caalamka ay ku qaybinayaan mise ilaahay ay ku adeecayaan ay janno kaga iibsanayaan ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa maalku inuu yahay wax qofka lagu imtixaanayo waa adiga arkay oo qof awood leh oo aqoon leh oo caafimaad la iska faramaran oo laga yaabaa inaanu masaariiftii lahayn waxa laga yaabaa islaana waxna qorin waxna akhrino hadday doonto curyaamadahina way kiishad weyn tahay meelay kala dhigtay laada oo kaasiba uu shaxaabayaaba hadduu wuxuu xirfad iyo xoog yahay ka aqoon-yahanka ah ee xariifka ee caafimaadka qaba ayaa buuxsan lahaa baaranka laakiin waa qadiyad ilaahay waa arrin ilaahay looga dambaynayo asbaabtu ha jirto iyo aqoontii lagu soo saarayo dhaqdhaqaaqiiba laakiin haddana waa wax qayb ilaahay weyn qayb ilaahay wallahu fadala bacdakum calaa bacdi fi rizq ilaahay uu idinku kala dheeraad siiyey idinkaa kala dheeraad yeeshay ma odhan anaa idinku kala dheeraad siiyey bul xagga haynta alla wuxuu waclamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna war waxaa ogaataan dadkiina iyo dunyadaba waxaa laydin dhiiba in laydinku imtixaanaya qofkani talow sidee buu u maamulaya ma meel xalaala buu ku bixinayaa mise meel xaaraana muxuu ka yeelaya mawqifkuu iska taagaya waxaa markaa nasku uu tilmaamayaa mar kale inuu yahay wax bilica ziine ah almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مالك إيه ضدك الدنيا الذين بيبوا بلعنا الدنيا وحمركم بلعي هي واحد بدله مركب واحد بدل طاعة لكن واحد باقيات لما ينهون هل كان لقصة هاي قاضنا أو كملي هاي مالك الخير لهم الجليون وحذاري ثم حذاري وحيثين هذا لو قفت جناده قفك مالك قعنت كوهيا إنه مدى يسكلوا ويناده إنه مركا كوكبره إنه إلهي اعتراف وايه إنه حقي لقولها قرواي كا إلهي ويدي نوع مثل مركا سا إلهي وحور كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى إنسان في كيلو رنشل يعني كان بي آيات كسود اكتنالي لكن هو النص هو عمل إنسان كان أدونك إلهي وسي وكبري أن رآه استغنى دعمد إلهي وسي يقول كبري والكاسول